nolosha adduunku waa imtixaan. Nolosha adduunku ma aha meel lagu nasto, waa meel lagu imtixaamo dadka. Qof walba wuxuu leeyahay imtixaan gaar ah. Midna kama marna in dhib iyo tijaabo ay marayaan. Qaar waxaa lagu imtixaamaa faqri, qaarna waxaa lagu imtixaamaa maal, qaar caafimaadka ayaa laga qaadaa, qaarna qalbi jab ayaa lagu tijaabiyaa. Laakiin mararka qaar dadka waxay isweydiiyaan, maxaan dhibkan oo dhan u marayaa? Iyagoo iloobaya in adduunku aynu ahayn janno. Haddii noloshu mar walba fududaan lahayd, dadku ma barteen samirka, ma garteen qiimaha ducada, mana dareemeen sida Alle loogu baahan yahay. Dhibaatadu qofka way jebin kartaa ama way dhisi kartaa, waxay ku xiran tahay sida uu u wajahayo. Qofka Alle aaminsan marka dhib yimaado wuxuu dhahaa wax walba sabab ayay leeyihiin. Wuxuu ogyahay in habeen kasta uu leeyahay waa beri. Nolosha aad maanta ku dhibaatoonayso beri waxay noqon kartaa sheeko aad dadka uga sheekayso. Ilmada maanta kaa qubanaysa maalin maalmaha ka mid ah waxay isku bedeli kartaa farxad. Dad badan waxay eegaan dadka kale oo u moodaan in aysan wax dhiba qabin, laakiin qof walba gudaha waxa ugu qarsoon dagaal uusan dadka tusin. Mid ayaa lacag haysta, laakiin deganaan ma haysto. Mid kale caafimaad ayuu waayay, mid jacayl ayaa lagu dhaawacay, midna riyooyinkiisii ayaaba burburay. Taasi waa xaqiiqda adduunka. Farxad iyo murugo waa la isku beddelaa. Maalin waad qoslaysaa, maalin kalena waad ooyaysaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa inaadan quusan. Ha u ogolaan dhibaatada inay kaa disho rajadaada. Xasuusnow in Alla aynu qofna culays saarayn wax uusan qaadi karin. Mararka qaar dib u dhacaaga wuxuu noqon karaa badbaadadaada. Mararka qaar albaabka xirnaa wuxuu kaa ilaalinayaa dhibaato aadan ogeyn. Sidaa darteed, marka noloshu kugu adkaato samir. Marka qalbigaagu murugoodo, ducayso. Marka albaabadu kaa xirmaan, Alle u laabo. Sababtoo ah nolosha adduunku waa imtixaan. Qofka samrana ugu dambayn wuu ku guulaystaa. Mar kasta oo aad samirka ku dadaasho iyo baryada Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaa kuu furmi doona albaabo aadan ogeyn, laakiin ay ahaayeen kuwaad u samirtay una ducaysatay. Waxaad ahaan doontaa qof helay riyaduu rabay, laakiinse haddii aad ogaato, haddii aad ka jeysato ducada iyo samirka, waxaad ahaanaysaa qof fashilmay. Waxaanad ogaanaysaa inaad ku fashilantay imtixaankii dhabta ahaa ee lagaa rabay. Haddaba si aadan u fashilmin, samirkaagu ha wanaagsanaado, ducadaaduna ha badnaato. Guushu waxay ku xidhan tahay laba mid: Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad la yeelato xiriir qurux badan oo wanaagsan. Midda kaloo labaad waa inaad ahaataa qof samra, cafis badan, dadkuna ay ka magan galaan afkiisa iyo aadinkiisaba. Jaalayaal, waxaan idiin rajaynayaa nolol qurux badan. Qof kasta oo riyo lahaana waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga rajaynayaa inuu gaaro riyadiisa iyo hadafkiisa.